magaalada Boorama ee xarunta gobolka Nowdal waxaa maanta soo gaaray wafdi balaaran oo hogaaminayo gudoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka UCID injineer Faysal Cali Waraabe. wafdigan oo ay ka mid yihiin mas'uuliyiin sare oo xisbiga UCID ka tirsan ayaa kadib markii ay soo gaareen magaaladan Boorama waxay la kulmeen bulshada qaybaheeda kala duwan iyagoo kadib kulankaasi shir jaraa'id ku qabtay hotelka Rays ee magaaladan Boorama. shirkan jaraa'id waxaa ugu horeen ka hadlay gudoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka UCID injineer Faysal Cali Waraabe waxa ka waramay ujeedada socdaalkooda maanta ee magaaladan Boorama. annagu halka maanta waxaan wax weeyoon oo socdaal yar baan socdaalka ayada wax ku eegayo gudda gobolka la hadalo gooyinka xafiiska annagu 10 sano ayaa ee Boorama markaan soo hadlay buuggii noo garaaci jiro dad imika annagu mobilization iyo durbaan iyo arkay maqla xisbi jira weeyeen wala xisbi UCID xisbi gaawar iyo maaha سينايو دلكو منطقة فيوتشر كيسو يهوغان كيسو ما قربنا ادو وفرمين مش شعبها وان حسوتا مالنتي ان لك الوليجي مدحوينه هore qiyaale iyo madaxweynaha cusub kelmad buu yimid qiyaale wixii waxaan kaaga tagay dal iyo dad midaysan iyo dal nabada maanta labadii dad kala midaysan nabadina waa sheek wareegsan sidoo kale ex ambassador Abdul Fattah Saeed Ahmed oo isna madashan ka hadlay ayaa waxa uu dhaliilay xukuumadda Somaliland siyaasadeeda ku aadan arimaha dibadda. muddo badan baa ku jira si arimaha dibadda arimaheena u socdaan waxa uu wasiirku iyo inuu ku koobantahay wasaaradda kaliya ta kale qodobka kale ku jirta waxay dastuurkeena qodobka 9 farqadiisa saddexaad hadaad eegto kaleerli waxa uu leeyahay madaxweynaha waxa uu magacaabay wasiirada wasiir ku-xigeenada agaasimayaasha guud gudoomiyaha banka taliyaha qaranka iyo safiirada marka maxamed 7 safiir ayuu magacaabay isagoo markaa burinaya dastuurkeena ka talaabsaday aniga kula hadlaya madaxweynaha magacaabay safiiradii kala 24 safiir baan kula inta badda Soomaaliland maanta noo jooga 7 waxaan ahayn kuwii hore xilka laga ma qaadin lama orxilkii dibad moogta ay xukuumaddu ka igmatay si wada si kastaba ha ahaatee tan iyo xilligii doorashadii xukuumadda xisbiga kulmiye ay ku guuleysatay talada dalkan waa markii ugu horeysay oo injineer Faysal Cali Waraabe gudoomiyaha xisbiga UCID uu soo gaaro magaaladan Boorama mana ahayn socdaalkiisa maanta uu ku yimid isagii wafdigan sare ee Boorama soo gaaray socdaal hore loo shaaciyay oo ay sii ogaayeen dadweynaha ku dhaqan magaaladan Boorama. Cabdi Fattah Ahmed, Had Wanaag News, magaalada Boorama.